السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهو بنا عافمات قبتين دمانتينا أدفرح سنتين وحولي باقي أوكي إنيهين إلهي إنكي مركز إسقونا قدو ناكسن مقال كان مانتا وحنو هذي دونا دور قضب ما نرهنا تلوين ما نرهنا يعني سيدا عادية jarankan waxaan ugu talagalay ama inta badan aan mataqaanay ugu dadaala ama muhiimadeedu ay tahay inaan wax faa'iidiyo okay in wax unday haba yaraadaane la iga faa'iido fahmaysaa marka waxaa jirto dhowr qodob ilaa 15 ka soo gaabiyay aan u talagalay inaad iga qaadatid tala ahaan okay ama ha noqdaan wax oo lisla ogyahay oo macruuf ah oo hortay laga yaabo in laga soo hadlay ama wax tajribo yar oo yani wax aan tijaabiyay ah ama wax aniga aan la kulmay oo saas aan ku arkay faa'iidadooda iyo yani caqabadahoodaba oona aan rabo in qaarna aan idinku baraarujiyo ama aan idin sheego inaad samaysaan qaarna aan idin sheego yani inay habboon tahay inaad iska dhaaftaan okay سؤال بيها هتبقى سؤال مقال كنا مانتا اوكي وحبا يعني دال iyo war dheer isla ma galeyno horan guda galeyna ilaa 15 qodob waaye marka tala ahaan iga qaadaniyo okay qodobka koowaad ku dadaal salaadaha iyo waqtiyada salaada sidoo kalena ku dadaal sunooyinka salaadaha rawaatibta ma sunooyinka يعني sunooyinka ka horeeyo salaadaha iyo kuwa ka dambeeyaba يعني noloshaada waajibaadka salaadaha ku koobin salaadaha sunooyinkooda raadi okay waqtiyada salaadana ilaali dad badan ka dayacan waqtiga salaadaha especially salaada subax oo kale dad badan ka dayacan marka tala ahaan iga qaado oo aan keenay aan ka dhigayna qodobka koowaad sababtu waxay tahay salaadu يعني إنها هذا مقال كان صلاة أو هذا لما صلاة هرا لو هذلي ضد بدنا كهذلي أنا وكهذلي فمثلا يعني وحول بقى وناجا توصنانتا هجاك سنانتا نولش هذا يمد أدون هي كجرت قلب كواد صلاة هاي اختيار هذا إلى هذه قلب كلابات إسكودي ويران مالنتي إن أخرده هالبوك والقرآن الكريم بكملها ويران ويا هالبوك نتخرسه يعني مالين والبو maalintaadu ka mid ahaato wax akhris muhiimna ay u tahay yani ay midka ugu muhiimsan uu yahay quraanka sidoo kalena buugaag maalintaadi jadwalkaaga maalinle kugu jirto inaad buugaag akhriso dabcan akhriska waxa uu yahay kuriga buuqiisa maanta said waa iskaga duqata yani wax akhriska salaadaha sunooyinka gaar ahaan qiyaamul leylka horta sahoro muqal horna oo soo sheegay waa ka hadli doonaa sidoo kalena waxa mar aan ka hadli doonaa mowduuca akhriska yani faa'iidooyinka akhriska qaabka wanaagsan ee wax loo akhriyo fahmaysaa sida loo gudbo yani waxyaabahaas waan ka hadli doonaa laakiin hadda qodobkeena labaad wuxuu yahay maalintii akhris inuu ku jiro noloshaada ayna lambar 1 u tahay in maalin walba ugu yaraan aad buug quraana aad akhriso buugna hadaad ku dabaqi kartid oo aad ku dari kartid maalintaadii ama habeenkii ama subaxdii ama galabtii mar aad saacad ama saacadii bar ama nus saac inta heli karto buug akhrinayso waa inay ka mid ahaato noloshaada qodobka saddexaad naftaada dhiirigeli ma jirto qof kale oo ku samayn karta qodobkaas qof sida aad naftaada u dhiirin karto ama ay kaaga mudan tahay qof kale ku dhiirin karaay ma jiro naftaada yani mar walbo isku day inaad dhiirisid inaad dhiirigelisid in waxyaaba yaryarka aad ugu mahadisid in fahmaysaa shakhsi kale oo kale inaad ula dhaqantid sometimes aad la sheekaysatid waxyaabihii aad u aragto inay ka gaabinayso ama ay xoogaa yar mataqaanaa sida la rabay aanay u ahayn aday buushkarey okay qodobka afaraad qof go'aan adag noqo qof go'aan leh noqo dadka go'aanada ka laabta oo yani la laabashada badan iyo dadka la fikrad bedeli karaba aad ay u dhiban yihiin yani qofkan maanta go'aan uu qaadana shay go'aansana iska dhaafa wuxuu ku fakaraa inuu go'aansado ama uu go'aansana and then fikirkiisa la bedelaya si uu bedelayaa meel yani waa laga yaabaa sometimes waxyaabo anaga go'aansano
inay jiraan wax nooga wanaagsanaan karo ama uu jiro qof meeshaas waxaas ka aragnay meel ka wanaagsan naga tusi karo way jiri kartaa laakiin dad waxaa jiro fikirkooda una isticmaali karin oo wixii ay ku fikiraan oo u arkaan inay dantoodii tahayba isla markii la dubi karo qof kale waxaan saamaa ka saanwaa isla markii isbedeli karo dadka noocaas yaana wayba adag tahayba aslan inay meel gaaraan ama ay wax qabsadaan because of maskaxdoodii ma isticmaalayaan adiga maskaxdu ilaahay ku siiyay qofkaan maskaxdu ilaahay siiyay haddii qof kale ay noqoto mar walba in fikirkiisa aad raacdo aaminastaada ma isticmaali doontid midda labaad dadku su fikrad ma aha dadku way kala duwan yihiin maanta qofaasaan kula taliyay waa qaadatayba tii adoo ku socdo mid kale aragtay mid kale ku siiyay asnay adoo intuu socday intuu ku diray haye balda waa raacday uu soo celinaa mid kale hadana another way so qof go'aan adago yani go'aan qaadan karo noqo go'aanadaadina yani hadalkayga oo dadka la fikrad dubi karo macnaheedu lama jeedo yani wada tashi la'aan iyo waxaas lama jeedo tashigu wanaagsan yahay in wixii aad rabto inaad qabsato ama aad samayso oo kale in dadka say u aragta aad dhahdid fahmaysaa diintu way ka mid tahay wada tashiga in la shuurayo arrinta qofkii aad isdhehaysid waxaan hebelow say u aragtaa aad dhihi kartid wax kugu soo kordhinayo la kaasho dad mudana jiro moogtahay inaad la tashitid ay ku habboon tahay jiro fahmaysaa oo dhan wanaagsan yani dhanka oo yani dhan wanaagsan wax ka eegaa jiro dadkaas oo kale la tasho go'aankaadan ku adkayso mar allaalihi markaad go'aan qaadatidna ilaahay tala saaro subxaana wa tacaala ilaahay uu jecel yahay kuwa tala saarto adoona arrinkaaga ilaahay ku tiirinayo ilaahay ku kalsoon ilaahay xaggiisii wax walba yani in biidin ilaahay ay ku hagaagi doonaan aaminsan haddana qof go'aan leh noqo qodobka shanaad iska ilaali waxa la dhaho dib u dhigashada in wax walba aad rabtid inaad samaysid aad dib u dhigtid waa mid ka mid ah dabeecadaha ugu liita dabeecadaas iyo midda hadda noo xigtaba waxay ahaayeen labadii dabeecado ugu xumayd oo aan weliga yeeshay laakiin alxamdulillah waa kasoo kabtay qofka مثلا بو soo gadaya buugii wuxuu isdhahayaa hadda ha bilaabin next month ha bilaabay wuxuu qorsheynaa isku aadadisanaa wuxuu isdhahaa sanadka dambe bilow bisha dambe bilow isbuuca dambe bilow waxaana xaqiiqada ay tahayba wixii hal maalinba ay dib kaaga dhacaan maalin xigtan waa ku daree next week waa ku daree wixii aad dib u dhigato ayaga way ku dib dhigtaanba ayagaaba ku dib dhiganayo dad badanaa arkaysaa oo intaasoo hawl u taalo isu fuufuushay oona dib u dhigasho darteed yani hadhow dambe waxaas waxay noqonayaan wax aanad wax ka qaban karin ani waxaa jiro markaas dabeecadaas kistaas aa yeeshay aa dhahayo buugaag aan markaas soo iibsaday oo ilaa hadda akhrin qaar ka mid ah laba ka mid ah xaggay intay ku jiraan kuwaanay ku dhex jiraan iyo laba kale oo buugaag kale oo xagga taala igu jirto ayaa jiro ilaa hadda ma akhrin hadda markii aan dib u hagaajiyey noloshaydii alxamdulillah oo dabeecadihii waxyaabo badan oo qaldanaa aan iska jarayna qaar u arkay inay ka hormaraan ay ku wanaagsan tahay buugaagtu way kala mudan yihiin buugaag waxaa jiro midka akhrin lahayd mid ka mudan oo ka muhiimsan yani waqti xaadirkaas ka mudan inuu jiri karo marka dib u dhigashada waxa la dhahayo noloshaada ka ilaali wixii aad rabtid inaad qabatid waqti xaadirkaas aad taagan tahay ka bilow okay qodobka lixaad isku day subaxdii inaadan ku laaban hurdada dabeecadda labaad oo ka hadlayo waa taa waa caadada ugu xun aan dhihi karaa iyadana oo bani aadam yeelan karo labada dabeecado aan ka hadlayo dabeecadihii ugu xumaayo aan yeeshay ah mid oo dib u dhigashada ahayd midna maxay ahayd subaxdii inaan hurdada ku laabto waxaan ku bilaabay ramadaankii hadda aan soo dhaafaynay oo ahaa maybe markaas soo xuurto kadib oo salaada laga baxo waa ku laaban jiray yani hurdada ku laabanayay sidii intaan ku bartay ramadaan maxay tahay ilaa waxaan soo waday yani ilaa laga soo gaarayay safarkii isbedelka aan ku doonay subax walba waa ku laaban jiray markaa soo kaco salaada dib la tukado sariirta aada oo ku laabanay waxaa kasoo kacayay 8 7 barkii waqtiga ugu mudan ee nolosha looga faa'iideysan karaba waa jiifay waqtiga ugu barakada badan waa moogta yani subaxdii hore qofku wuxuu qabto intaas yare subaxdii waxa qaban kartid maanta oo dhan ma qaban kartid maalin aan saaxiibtay aan wada sheekaysanayna aadahnay subaxdii intaana qabtaa markaas ay isweydiinay horta subaxii muxuu uga dheeryahay waqtiga kale kastaas yarta shawaab waqti ducaysan nabiga u duceeyay calayhi salaatu wasalaam uu yiri rabbi oo ummadayda u barakay kala haadooda buug dhanaa jiro oo hadda markii aan buugaan oo neecawda quraanka aan soo koobayay arabay inaan idin sheego next buugeen waa isagina inaan dhaho yani waan ka ilaabay buugaas labadaas buugna hal mar isla soo iibiyay hadda buuga oo sida aroortii
qabiyu iyahay markaa dhamaystiro insha Allah isagana waan soo koobi doonaa oona dabcan aafilayo qofkii buugaas akhristo oo wax ka fahmo in subaxdiisa uu beerdarayn doonin oona waqtiga ugu muhiimsan wax badan uu ku bedeli karo marka sidoo kale waxay dhahaan waa waqtiga arsaaqda yani waa waqtiga rizqa la qaybiyo marka ma haboona qofka salaad subax kadib inuu saxo at least markii hadii aanad qof meel aadaya aanad ahayn markii qoraxdu soo baxdo oo 7 iyo wax ama 8 ama ay noqoto iska sax laakiin inta ka horeyso wax kala qabso wax akhrisaan ugu wanaagsan waqtigaas quraan akhri ama buug akhri ama casharo kale haday ku yaalaan akhri yani subaxdaada waxyaabaha subaxdii qabanayso waa wax ugu mudan oo noloshaada bedeli karo okay marka iska ilaali caadada in subaxdii aad hurdada ku laabato habeenkii waqti fiican seexo si aad subaxdii u toosto yani dadka inteena badan hadda jiilkeena dhafartan ugu badan qofku iska dhafrayaa uu saamaleeyaa habeenkii wuxuu qabanaya ma jirto wuxuu gaarayaa يعني 12 habeenimo habeen bar 12 dadka qaar ku dhahayo xalay ilaa 7 saac soo jeeday waxa uu soo jeedi karto habeenkii oo mudalba inaad hurdada ku beerdarayso mudan ma jirto qofna sariir ku saaray isbitaal ma la joogtaa waa may wax kale oo la soo jeedi ma jiraan inta kale qabo maalintii hooyadii waxay dhihi jirtay waxay aad u diidi jirtay horta habeenkii waxyaabaha la qabto habeenkii midalan markii oo maghrib la tukado oo kale ay ka soo laabato magaalada ama cishaa oo kale la dhahaa waxaan oo kale u baahanahay la dhaho am dukaanka hebel wax ka soo gad hooyaday waxay dhihi jirtay wixii maalintii la qaban waayay habeenkii haloo dhintaa arko waxay dhihi jirtay wixii maalintii la qaban waayay intaas saacadood soo ma ahayn la qaban waayay hadda haloo dhintaa arko hab ugu darnaato wax banaanka looga baahdo ma bal soo gidi jirin ama waxay dhihisay mararka qaar ayadoo ka xuno nacnaanaysa dhigi jirtay wiilasha u dira marka qofka maalintii wax uu maalintii qabsan karo ma mudna inuu habeenkii la soo jeedo bal ay had wax loo soo jeedayo ma baahan wax tan ku jirto ma aha qofku iska soo jeedaa fahmaysa marka dhafarka habeenkii intaad ka gudubtid xilli fiican seexo si subaxdii aad xilli hore u toosto subaxdii hurdada ku laaban qodobka toddobaad wixii aad ka dhex aragto dantaada oo aad u aragto inay adigu anfacayaan anfac aduun ama aakhiro yani wixii aad u aragto inay ku anfacayaan aduun iyo aakhiro ama ba aan dhahnay adigu farxad gelin kara adigu farxad gelinayo cidbaha kala tashan rabbiga u tala saaro subxaanahu wa ta'ala kuna dhaqaaq waxaasi qabashadooda tala saarashada mid ka hadalnay oo positive ka maaha waxa jiro dad badan oo waxay dantoodii u arkaan the reason oo qof kale uu u dhahay waxaan ma qaban kartid ama waxaan sameeyay kartid ama waxaan kugu haboono oo kale inuu u joojiyo waxaas uu ogyahay inay dantiisa ku jirto soo wixii aad dantaada ka dhex aragto oo badnambi ka soo gaaraynin oo Allah subhanahu wa ta'ala uu raali ka yahay labadaasi dan midoodna ka aragtid dantaada aduun ama mid aakhira ka dhex aragtid qof kale wuxuu sheegay waxa ka galay sidaba wax marka aragtid inaad waxaan aad ka wixii aad u baahan tahay inaad ka miro dhaliso aad dantaada ka dhex aragto ku farxad gelinaya naftaada ku qanacsan tahay Allah subhanahu wa ta'ala uu raali ka yahay oo aanay ahayn wax aduun iyo aakhira ku beelinayo dadka hadalada inaad dhanba marba dhan u raacdid muhiim ah waxaas Ilaahay u tala saaro shaqada hor ka bilow waxay doonaan ahaadaan qodob sideedaad tagtadaadii ka dhig baal xirmay yani waxyaabihii ku dhaafay noloshaadii hore baal xirmay ka dhig yani ka fakirin waxyaabihii hore ku soo dhaafay kaliya waqtiga ay ka lumin doonaan oo waxba kugu soo kordhin doonaan waxna kama bedeli kartid fama way tageen taas bedelkeedana aamin oo rajay wax soo socda inay ahaan doonaan wax qurux badan idin alle kuna ilaabi doontid dhamaan wixii tagay aslanna ma mudnaba yani wixii tagay inaad ka fikirtid ma mudnaba inaad waqti u heshin waqti wixii hore aad uga fikirto yani inaad waqti ku bixiso waxyaabihii hore ee tagay ma mudna ma loo baahnaba inaad waqti u hesho waqti aad wixii hore uga fikirto ma kugu habboona waxaas haday wax adag ahayeen hadii kaleba 10 ka baro hore ugu soo dib u soo laaban maayaan waxa kama bedeli kartid way dhaceen خلاص meesh ku xir yani buug bal daboolmay oo laabmay ka dhig hore ugu soo dad badan ayaa jiro wixii hadda jiro ay uga faa'iideysan lahaayeen ama waxa soo socdo ay ku balan gareyn lahaayeen oo ay ugu diyaar garoobi lahaayeen oo uga faa'iideysan lahaayeen qoomamay la fadhiyaan wixii hore ku taagayeen ilaa hadda waxaan saan maxay u dhacday saan qofka muuminka way ka fog tahay waxaan haday dhici lahayn iyo waxaan maxay u dhaceen isaga isma hayaan yani
wixii dhaco alxamdulillah khalaas ma bedeli kartid Soomaali hore uga socdo. qodobka sagaalaad noqo qof dhabar adeeg leh oo u dhabar adeegi karo u dhabar adeega waxyaabaha uu u baahan yahay iyo sidoo kale caqabadaha uu noloshu kala kulmo sababtoo wax waliba caqabad ay leeyihiin qofkana mar haduuna ahayn qof dhabar adeegi karo adduunkan hadda joogno ma qaabili karo runta ay sheegay qof caalamkan hadda aan ku noolnahay qof dabacsan oo wax walba soo wajaho yani uuna qaabili karin uuna ka gudbi karin oon xalin karin caqabadaha dhabar adeeg lahayn meel ma gaari karo kow dhaawac u fudud yahay oo had iyo jeer qoomamo ku jiraya midda labaadna haduuba u dhabar adeegi karin waxaan uu rabo ma u suurtagali karaan because of wax walba la rabo in la gaaro caqabaday leeyihiin marka waa inaad ahaatid qof caqabadahaas u diyaar ah ka gudbi karo oo shakhsiyad dhabar adeeg tale dhabar adeeg yani dhabar adeega waa dhabar adeeg yani waa dhabar adeeg qof adag oo wixii ka hor yimaado u dulqaadan karo wax badan aad arki kartaa bani aadam yani qaldana arki kartaa qof dabeecad qalabsana arki kartaa qof yani ama qof ba ahayn oo waxyaabo kale oo wixii aad u socotay weygaagi soo xiri karaad arki kartaa qof dhabar adeegi karo oo waxaasina ka gudbi karo oo xalin kara noqo qodobka tobnaad ku qanacsanow waxyaabaha yaryar ee aad haysato kuna mahdi si aad u ahaato qof faraxsan waxa aad haysato qof ku qanacsan oo ilaahay uga mahadceliya hab yaraadaane noqo si aad u ahaato mid faraxsan oo yani degan nolol degan ku nool qof markuu mar had iyo jeer uu hamiyo oo tamaniyo oo yani qoortiisu ay u taagan tahay wixii ka maqan qanaacida ka dhamaanayso ma noqonayo qof faraxsan يعني من نقنايو قف أركايو وحيابها يريرا إلهي ونمعيه وهريريس يا نمعينك ومقناي ما أركايو وكقرصو مايان ما دام وحي كلا متقناي كما قن وهن قلتاجاي بس مرنا بحكو قنعين وحيابها يريركا إيه أتقبطو كلا صاد وحي يريركا إيه أتحيسطو وإلهي كسيي حكو يرادان هداي ربان قفكو قناعسانو يعني كوم هتعليان نقو لكن مرنا بحكو قنعين waxyaabaha yar ee aad qabato oo aad adiga sameynaysid yani mar waliba hamigaaga ha ahaado wax ka weyn inaad qabatid waxaas aad qabatay oo yaryarka ah wax ka weyn inaad noqotid had iyo jeer hamigaaga ha ahaado meeshaas aad hadda joogtid meel ka sareyso inaad gaartid hamigaaga ha ahaado maybe labadan qodob inay si isku ka dhaxyaaceen laakiin ma filayo waa waadax yani waa clear okay qodobka 11 filashooyinkaagii ku aadan waxyaabaha qaar boqolkiiba boqol ay noqon fahmaysaa si uuna dhaawac ku soo gaarin yani tusaale kaba soo qaad qof shaqeynaya tahay waxa lagu dhahayba mishaarkaaga la kordhinaya bish soo socoto ama bishaan labadan bil markay dhamaato sanadka cusub mishaar kordhin lagu sameeynaya kaba soo qaad waxa dhacday wax unsiba wax isku bedelaan hadii la rabo yani bani aadamku waqtiyada waa walba yani maalin walba cusub ay timaado isbedel la timaado moogtahay laga yaabo waxba isbedelay adigii filashadoodu waxay ahayd boqolkiiba boqol wax badanaad balayn karaysay wax badanaad qorshaysay waxaad istimshaarkaaga la kordhinayaa intaan way ku fadhisaa waxaan intaan ku qabanay waad israacsiisay ka soo qaad adii waa 100% waxa istiri خلاص mishaarkaaga waa la kordhinaya sibay wax isku bedeleen bishii markaad mishaarkii aad sugaysay intaad yar u sii ma dhaawacday ma dhaawacmo قاعد كايريس سوما أما قدرنا لقى حلي أميان لقى حلين فقط هراء أتوقاتيد إن بشر مشاركة إلى كردين أو في ليس إلا كردين دونه شعور هذا ويثبت شيء هذه في الأشياء هذا إتاس كيران لهاد كيران لهينا ما أنا إدعي لهي واحد جرته راه ترى هذا وحوان محيهد راه واحد جرتي وحول بقى إلى يقاطع محيده يسي ها هناك سمي عندنا أول مرة كسوي يعني وحياها أتقبنيسو هو قبن إلا هو أول مرة وحول بقى أتقبنيسيد إلا هدرتي وقبل حتى شقادة أتقبنيسيد وأد أقتها هنا المشارك وقادم دونتين نيسو وحاس إنا إلا هدرتي سمينيسيد وأن أجر أكيه كرتي نيسو مركو هرب أصلا قف بقى هكسوين أنو كوم هتعيه أوكي مركا وناك سمي عندنا أول مرة هكسوين وحلال راه متقانا هذي قالوا إلالين وإيه سيد دامج أنو كوسو قارين تصالك عليه كبسوقات قفات وحوين وسميسي وحباد u aragtay qofkan inay farxad galin karaan ama adiga hadii lagu sameyn lahaa aad ogtahay ankarka xoogaa ila qaldan ma aqaan aad ogtahay waxaas in boqolkiiba boqol aad ku farxi lahayd
aad wax badan qaban lahayd aad mahad celin lahayd oo kala badan lahayd aad ogtahay aad u malaynaysa ama aad filaysidba ayaad qof u samaysay kasoo qaad waxaa laga yaabaa qofkii falcelintii aad ka filaysay inuu ku siiyo مثلا qaabka u maleynaysay inuu مثلا guriga maanta buuqiisa saaid waaye ilmaha fasaxaha la dhahay dugsiga caruurta dugsigooda fasaxayay saakay so yuu qaata sida caadiga ahna waa necbahay muuqaal markaa duubayo buuq inuu ku furnaado oo maanta oo dhan marba hadal dheer mar walba soo galaa laakiin markaas canug yar iyo gabar kale yaris lay joogi jirtay oo codkooda inta badan waxay isku dayaa inaan jaro inaan maqli jirteen macquul waaye laakiin waa ka taxadiray inuu idin soo gaaro marka maanta ku qaata sidaan marka sheekada meesha ii maraysa ilaa ha marka qofkaas waxaad ka filaysay inuu zaaid kuugu mahad celiyo oo in wax unde filashadaadii waxay ahayd boqolkiiba boqol kadib hadday noqoto kama soo qaad marka qofkii falcelintii aad ka filaysay ma aanta helin adiga ma dhaawacantay mise ma dhaawacmin laakiin haddaa fili lahayd oo aad isdhihi lahayd qofkan waxaan waa qabtay aniga in la ii mahad celiyo waxaas muhiim ah aad isdhahdo ama waxaan marka horeba aad ilaahay dartii u qabato aad ajar ka filayso khalaas wax ma kusoo gaarayaan even ay dhacdo qofkaas inuu falcelin oo mana filaye oo negative wax aanad filanaynin ama uu sameeyo adi wax muu arkaysid tusaale kale oo lagu wada fahmi karo markaa yaryarayn wixii lasla soo maray waa la wada fahmaa ma ogtahay xitaa dadka qaar haddaba waa la sameeyaa laakiin way kala duwan tahay markaa yareed albaabka markaa soo garaacaysid ganjeelka ka waran haddaa kusoo tiirsato isaas u tiirsato deedna yaa waaye ani waaye lagaa furo see noqonaysaa waad ku xaroonaysaa meesha si xuna u dhacaysaa maahano waa sidaas oo kale dee laakiin haddii hal qayb meel aad ka haysatid ama albaabka midka xiran aad ku tiirsatid ama taxadirkaaga aad qabtid dee oo hal lug aad ku taagan tahay haddii la furo waad sigan kartaa un laakiin ma dhicaysid waa sidaas oo kale waxa markaad filanaysid maamaha haab jirtaba gaaban nabar aad filaysid naxdin male marka inta badan waxyaabaha waa ku dheeraaday qodobkaani marka inta badan waxyaabaha qaar filashadaadii boqolkiiba boqol ay ku noqon niyadaada ku jirto yacni waxaan inay dhici karaan ama inay dhici karin at least 50-50 si dhexdhexaad qodobkayna xiga qodobka 12aad cafiska bar cafin badan wax cafiyo inaad iska saamaxdo ama aad cafiso cid kasta oo aanad cidba wax laabta ugu haynin caafimaadkaaga iyo deganaantaada ayaa ku jirto taas ajarna waad ka helaysaa oo waa abood cafiska daciifnimo maaha sidiisa ee waa abood maaha taagdari cafiskana markaan ilaahi subxaana watacaala inuu na cafiyo waan jecelnahay adiga qof markaa wax ka helaysid inuu ku cafiyo waa jeceshahay so that's why adigana qof walba iska cafiyo tusaalehaan hadda qodobkaanaba kusoo xasuustaye waxaa soo dhow 15 Shacbaan ilaahi subxaana watacaala habeenkaasi cid walbo wuu u dambi dhaafaya marka laga reebaa la yiri marka laga reebo 2 qof labadaasi qof waxaa ka mid ah 2 qof oo walaalo ah oo caloosh wax iskaga haay ka taxadar arrinkaas ani aslan waa waxyaabaha aan yacni aan ka taxadaray ka mid tahay in adoon ilaahay aan xurguf laabta ugu haayo anna in la iigu haayo waa necbahay marka cidba laabta wax uga hayn si adigana aanad culays u dareemin ajarna aad u hesho habeen walba markaad seexanayso ka fikiryaad wax u haysay maanta yaad iska harteen yaa xoogaa u carootay iska saamaxay dadka qaar even dadka ay u xanaaqsan yihiin ma oga qodobkaas waxa uga faa'iideysanayaa kelmadaha aad dadka ku dhehaysid oo kaftanka sometimes ilaali maybe muuqaal kale uga hadlay arrintaas dada iska jiri karo bani aadamka isku mid maaha ilaahay masmin aamus khayr hele bani aadamka isku mid maaha ilaahay masmin qofka laga yaabaa hadal yar oo aad kaftan u tiri inuu meel ka gaaro uu xagtaba kadib waxaa laga yaabaa ama adigaba aad noqotidba qofkaas hadal inuu kaftan iskaaga iriya laga yaabaa oo wax weyn isagu kasoo qaadin oo caloolba yacni calool xumo iyo una ka hayn adigii waad ka xumaatay erayii waad ka cugtadaysan tahay sooma waxaa laga yaabaa week 2 week inaad qofkaas u xanaaqsan tahay isagiina kuma oga at least qof markaa wax aad ka tabatid ama qofkaas aad u aragtid hadalkiisa inuu ku gaaray ama yacni aanad ku qancin u sheeg waxaad tira
تقول هاي ساعة هبلو سنة يوتري سنة يوتري يعني مكان مضنين محد ساس يقول سميسي إساقي هأوغاد هورت هذا كان إنو قطابطي كدبنا سيديو أوجيه معهن ومركاسو وكره الجلينا أما إسكا عفيبة وينها كسو قادم مركا أدي قلب حوية هاي هنا فافاهي مهمة معهن عفيس كبرو قف حفيس بدل نقو قلب بس اللي حيتهم صاحب ونكسن يلو صاحب ونكسن أو كوريحي كرو أما يعني كوجو ديرين كرو كوجو بوش جرين كرو قولها قدون قولها آخر كو افتيمين كرو واحد هذا كجرو ما هدي ما صاحب أو حياها حن كوسو ديرو ضدك كل حنتو كاسمها وحول بو قادرن واركو أو اسكما لا يعني كوسو ديراي كاسمها صاحب ونكسن ودنك ونكسن isla aadi kartaan naftaada yani u raadi ku hogaami suuratu kahf ilaahay wuxuu yiri wasbir nafsaka maca alladina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi yuriiduuna wajha saaxiibada wanaagsan qofka mahmaha waxaa jirto hooyaday ka maqli jiray lan wadaashay unsi gadow shiina ku moohay yani saaxiibkaaga wuxuu yahay la tahay hadduu saaxiibkaaga unsi gado adigana waa ka soo carfay marka qof wadadii wanaagsaneed ku riixi karo ku dhihi karo heblow maxaad saas u yeeshay marka wax qaladid ku canaananayo ku dhahay waqtigii salaada la gaaray nakeen waxaan ma bilowna xiftis ma bilowna wax saas ama yani wax wanaagsan ku riixay raadi saaxiib aad ka rajaynaysid maalintii aad geeriyooto aad ka horeyso qabriga soo booqan doono maalin ku duceyn doono salaadiis kugu yani kugu soo xasuusan doono markuu tukado ku dhihi doono rabbiga oo saaxiibkay u dambi dhaaf saaxiib rajadiisu ay tahay adduun kaliya uun ahayn oo ay tahay in jannada ilaahay aad ku saaxiibtaan rajadiisu tahay adigana noqo saaxiib saas laga filan karo ha noqonin yani saaxiib oo saaxiibada مثلا saaxiibada aad leedahay nooc aragtid ma ahanba noqo mid bedeli karo فهميسا أذيجي هنقولين متك اللي بدل الهاي وضد قلدان لو ريح لها هنقولين إسكو ضاي صاحبة هذا إنه وضد ونكسن هتنكو سوجيدو هاد سو صارتو إسكو ضاي وضد ونكسن وصور يحكو أذيجي هنا صاحب ونكسن نقو صاحب ونكسن وضدي ونكسن يتكو هاي كرنا هذه صاحبتني ماذا معها معناه ذا دي إن حمانتك اللي لو صاحبه أو فدي كدير لو وضد فريستو أو قصر ما يعني لو وضد قاطو منكر لو وضد اللي يستمع صاحب ونكسن إلهي رالجنيس يعني رالي هانشيس أد وربطان ورادين إنسان راتسو مجرى قف إسكالو مايو sometimes ما هرين إنه الحلقية بس إسكالو علنا شو أتدهيسي دات كانوا صاحبة ضايو إسدهيسي قف مركي إن بدن أتشوفوا جاتان وتفهمتان وتجعلاتان ومحبي إسكوا إنسان وحول بوصمينا يا لقيا بيني كلون هيك سنادان لقيا بمال ما كمل مجدي وكجرو هنا طول العيد isku day inaad ka soo bixisid adiga soo badbaadisid khayrna aad isla raadisaan qodobka 14aad diinta wax ka baro yani cilmiga diinta shariicada inaad baratid raadi maadi kaliya ku koobin noloshaada xirfadaha kaliya ku koobin gaar ahaan qodobkan waxa ku keenay dumarka ku keenay gabdhaheena waxyaabo yar yar oo waxa jiro وجرتها وحي يعني يران مقران وحي أنا متقانا أقوان أولهين فاسألوا إن كنتم لا تعلمون إهد واحد جروق قضبو إسكا إيزيا أو صاصبو أتكين أو مادام قفكان وحان أون أوغين سألقوا استعمال جريها مرك قاركو أركا سوشيال ميديا أيضا سؤال لك ويدينا لماذا إلهي أجرى كسيه يغان خير كود إلهي بضيو أو أول كود جناء الله كالإيجاي مركا هدي هاد اسكو تعالوجين لهيدين وغيران في قلب ميسر إنها توحكا برطان أو تكجرو متقانا كتاب الظهارة كيفية الصلاة الصونكا يعني قاك ونكسن ولو ويسقادن كرو قفكو اسكو ظهيرين كرو حتى وحاجرو وكهدلايو باب وقويسكي كهدلايو وحيابو وحاجرو قفك أساسي وكو كلا قران كرو وحو حقو ليهاي وحو لو قردرين يهاي وكو بران كرا جرتو مركا اسكو ضي inaad barato cilmiga hadda cilmiga ma sha Allah waa easy meel walba lagu baran karaa xitaa meelaha qaar lacag la'aan lagu baran karaa xitaa social media ka baran kartaa raadi haba ku yaraadaane wax cilmiga shariicada ama kutubta inaad ka baratid ahadiithta inaad baratid siirada nabiga kaleey salaatu wassalaam inaad baratid wax badan ka faa'iideey
nuura kusoo siyaadayo iyo hanuun fahmaysaa qodobkan u dambeeya naftaada edbi naftaada isku day inaad hoggaanka u qabatid inaad rabaysid oo aad tarbiyaysid oo naf quman oo aad yani meel wanaagsan aad u hoggaamisid naftaada adigay tarbiyad kaa rabtaa adigay kaa rabtaa hoggaamin fahmaysaa mid cajiibka waxay tahay aranow tanna muuqaalkii hore oo aan uga hadlaynay يعني آفada social media uga hadlaynay inaan ku dhahay in kalma sheegi karin laakiin waxyaabaha cajiibka ayaa waxay tahay markaan yaryareen waalidkeeni waxay tarbiyeyn jireen shakhsiyadeena yacni markaas nafteeni edab bay lahayd naf edban oo wanaagsan oo iska nadiif ay ahayd laakiin shakhsiyadeena la edbinayay hadda shakhsiyadeena way edbisan tahay walow la heli karo dad waaweyn oo shakhsiyadooda xitaa edab daran tahay way buuxaan hadda caalamkan hadda joogno waxaan la arkayn male qof oo shakhsiyad ahaan u edab daran xitaa waa arkaysaa oo qof weyn ah laakiin ma badno qof weyn markaa tahay hadda shakhsiyadaada way edbisan tahay laakiin naftaada way edab daran tahay runtaa isku sheego naftaadina hadda adiga mataqaanaa edbin kara adiga rabayn kara iyada meel wanaagsan ma rabto wax wanaagsan ma rabto meel qaldanay kugu riixaysaa fahmaysaa in nafsa la amaratun bisuu wixii dan ugu jiro ama ma rabto wixii danba aad ka dhex arkaysidoo u baahan in lagu sabro oona wixii natiijo aad ka heli doontid ayada ma rabto marka naftaan aad tarbiyaday carbi wanaaji khayrka ku riixo ku mataqaanaa ku dirqi xilli wanaagsan inay toosto ku dirqi inay xilli wanaagsan ay seexato ku dirqi in waqtiga salaadaha ay baraarugto oo ay salaadaha hore yani waqtigoodii ku dirqi wax walba naftaadii adiga ayaan dhiirin karo adiga ayaana horumarin karo adiga ayaana tarbiyadayn karo ma jirto cid kale oo taas ku samayn karto qof maanta ku dhahayso hebelo ama heblaayo inakeen intay gacanta ku qabato meeshii yoolkii aad dhigatay ama meeshii aad hiigsanaysay ku geynayso oo ay ku dhahayso waa kaa meeshii waa ku keenay ma jirto naftaan adiga ka shaqeey wixii danteedii adduun ahna kala shaqeey oo ku dhiiri wixii aakhira ahna ku tarbiyaday oo ku edbiyo oo ku dhiiri intaas ugu talgalay maanta in la wadaago qodob kale waxaa jira oo qodobadan oo qoran oo aanay ku jirin oo dee hadda isagana igu soo dhacay oo laakiin qodobkii hore oo waqtiga muuqaalkii hore oo waqtiga uga hadlaynay aan rabay inaan uga hadlo bishaan shacbaan ha laga faa'iidaysto salaadaha iyo soonka iyo markii laga soo tago quraan akhriska hala badiyo waxaa laga yaabaa had already saa sheegnay 15 bafood noo soo ehbo 3 maalin mise 4 maalin naga xigto hadii qofkii 15 ka hor soo soomayo 15 kan damban ilaa iyo 29 ama 28 la gaarayo si soomi karo de waaba okay qofkaan bilaabin ama bilaabin laakiin quraan akhriskan ha lagu baraarugo yani isku day inaad quraanka bishaan dhexdeeda aad in badan akhriso Anas saxaabigii Anas ibn Malik radiyallahu anhu wuxuu yiri waxa laga wariyay yani oo xadiis warinayo wuxuu yiri waxaan ahayn bishii Shacbaan markii la galo koob يعني مصحفك كفورة حتى كي دكان لا دكان كيسو سو خري جيري ودا مساجد كان اسكو تغي جيري صلادها كهر iyo salaadaha kadibba kuwa zaid quraanka u akhriyo ayaan ahayn wada marka ilaahay naga dhigo kuwii ka faa'iideystay bishaan oo bisha Ramadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad iyo barwaaqo oo inoo gaarsiiyo intaas ugu talgalay maanta inaan idin la wadaago qodobada aan mataqaanaa igu soo dhaco mar waliba oo aan isdhaho waxaan adiga waaba ku dhacday ama waaba aragtay faa'iidadooda ama khasaaradooda dadka la wadaagayo isdhaho laakiin aan qorina jiro wixii marba hadaan diiwaan gelinna way ka lumaan marka intaas oo soo koobaya oo kuma santiin daawashada muuqaalkan daawateen I hope in wax haba yaraadaan aad ka faa'iideen wajazaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh